Shayma, please sit down. mudane si wuxuu jiraan waa maxay warka naxinta badan ee emailka igu soo dirtay waayo anigu waxaan ahay shaqaalaha ugu shaqada badan ugu firfircoon ugu aqoonta badan waad ogtahay sanad kastana waxaan qaadan jiray abaalmarin maxaad aniga igu soo dirtay shaqaale dhimista Horta Shayma waan ka xumahay waxaan ilaa shalay akhrinayay email badan oo soo dhacaya oo qolooyinkii donoriskii la shaqeynayay ay leeyihiin lacagta si jirnay waan dhimaynaa marka waxaana dee wax caalamka jira كمبينيجينا نقوم هرئيس وشغال على مسك اللي جيم صمينا من قرأته وكاول على الأد وأنا قلت معي إن شاء الله نوتيس بيرد هاي بشهر نقود يارين دونا حقا جيم تشقين سنة نقود يارين دونا أد وأنا قلت معه مالي ونكس موبلكم والله موبلكم موبل قالية أو أد وين يا لعقتها لقيت سي موبلكم أد بأوبانته لكن قفكي لا وحنا ملنا إنه عدلي ورادينيو صراحة كان كراديا تلو موبل كيجي مركن قاعد قال كحري تميك توك دعينيو تلو موبل كيجي يا حاجة جدا دوكمنت بدن بيجي تشري وليبا كم مرمي والله يا ولال مدياركين بولالا ومي ولال وان كوارك يا أي حق مهمة قالوا انتهى maxaa kugu dhacay walaal kaalmo walaal waxay ka lumay mobile oo document muhiim igu jira walaal marka meelahan ku diiday oo mashquulsana walaal kama maarmo ma adiga walaal qofkan xog muhiim igu jirto wallahi walaal waxaan kugu abaal guda karamaaye magaca walaal walaal waa isku leenahay magacayga Shayma weeyaan walaal aan maxidi Cabdiraxmaan baa leeyahay bulsho wanaagsan is arag dambe wanaagsan la wareegti ya way soo socdaa talo chip isku sugayna laakiin dib male oo Shayma iyo walaal fiicantay xaaladada hooyahaga waa saabsatay maxaa ku dhacay maanta maxaa halkan xafiiska waxaan ku saabsan maanta haye halkan baan alaabteedii waxbaan ka soo qaadanay iga war xaaladada hooyahaga wallahi aad baan fiican waxay noo kala dambeeyay wallahi khair haye maanta waxaa khaldan si wadiir muugisantay ayaniyo arnaan farxad lahayn oo ku farxin oo ku farxi doonin oo maxaa dhacay walaal maxaa dhacay كمبانيجي أنا كشقيني ما قرناش. كمبانيجي أصلاً ما أنت اللي جوز سمي شقالة دميس واحد لها. هاي. ترى حكم النقطة شقالي جوهري أبوكو جوهري شقالة دميس ترى جوز سمي. كشقالي اللي جوز فريسي والله. وشقالي ساسد قطك تاي غير ما تاي. أوه والله ما كحماي ولا شيء. هاي. إمك واحد شقاي ما هيسين ركع. واحد شقانا ما يتاسو كليا كشقاين ترتنا اللي جوز فريسي ترى سباي فرم بماته. شيما waxaa marka xaleemka wallahi waxa la ma garanay gabiga stress bay ugu fudan madaxa ay xanuunaya waxa sameeyna ma garanayo horta waa ku xumaay Shayma eeg marka hore shaqad haysay shaqadan ku soconay laba qawan isma qaato maadaama imka aanad shaqo haynin ma sii wadan karno xiriirkeeni ma wuxuu ku xidhnaa shaqadayda ha way laba qawan isma qaato Soomaa waxaan ku weydiiyay ilo shadawida ninkii maarad hayshay dhiiri gelinayay inaan shaqaysto inaan kula farxo wax kasta igu dhiiri gelin maanta waxaan ku shaqeysaa waxa shaqad haysay walaal markaas shaqadii xiriirkeena maxaa iska dhaxlay shaqada wala helaa wala waaya maxaa dhacay laba qaban isma qaato Soomaa ya ha waa ka xumay ma soo socon karno imkana khayr baan ku rajeynayaa walaal isug bal isug walaal hadalkaad ku hadlaysa maad ka fiirsanay waxay dhici kartaa maalin maanta inaad ka qoomeyn doonto sababta waxa waa adduunyo maalin wala hela maalin wala waaya wax dhici kartaa in maanta helo shaqo may walaal waqti ma hayo ku salaamay walaal anigu ku aaminay wanaka istaahila wadiga taydiyo ajoogiga diiday ku aaminay wanaka istaahila wadiga taydiyo ajoogiga diiday
السلام ورحمة الله وبركاته ولا سودو wadhow walaan fiicantahay الحمد لله خير. maxaan kaa caawiyaa walaa wala waxaad ii tilmaantaa qolkii interviewga lagu gelay walaa insha allah dhinacaas baa lagu geliya dhinacaas hoolkiya dhinacaas aad soconaysaa walaa ay walaad soo soco asalaamu calaykum ala inankii maanta dhaweyd ma tihid haa walaal shay ma toos baan ku xasuustaa waraaqaana ku mashquulsanaa cv-gaaga soo maha korba kumanayga walaal iga raali noqo kusoo dhowan kombaniga maasha allah cv-yadaada markaan eegay kombaniyo badan oo soo shaqeysay jaamacadda digri iyo master baa siitaa ilaa waxaad ka soo shaqeysay 7 company ilaa 8 company laakiinse walaal mid ma ku weydiiyaa adoo heerkaa taagan aqoontaa leh maxaa shaqadaadii sababay inaad ka timaado wallaahi walaalo kambaniga ka shaqaynayay baa karoonihii iyo wixii dartii uu shaqaale dhimis u sameeyey markaa waxaan ka mid ahaa shaqaalihii ugu horeeyay shaqaale dhimista lagu sameeyo walaalo shirkaddu way ku khaldanayd adoo heerkaa taagan maanta aqoontaa leh inay dee dib ku soo celiyaan amba ay shaqada kaa fadhiisiyaan shaqo joojin ku sameeyaan iminka 2 qof oo kaa horeeyey baan interview la galay markan dee adiga iyo iyaga isku ka eego aqoontooda horta aqoon ahaan marka la eego waad ka sareysaa kolley xirfadeediina waad leedahay halka waxaa kugu qoran 7 ilaa 8 company inaad kasoo shaqeysay xirfadaada lagama shakeeyo laakiinse muhiimadu waa aqoonta maasha allah aqoontiina waad leedahay saasaad booskii shaqaalaha ku heshay booskii banaanaa wixii maanta ka dambeeya waxaan ku leeyahay shaqo wanaagsan soo shaqo gal insha allah adduunka السلام عليكم صاحبي ورن خير صاحبي شو وناسين الحمد لله رب العالمين والله ما صاحبي هذه أنا فرح سنة هاي تاني واني بدن بلا عمل كها مجالدنا بلا عمل باكتشرته مركا ما أنت واحد دوني كوبني حقنا إن نشرق التقو بالسود عي صاحب سود عي لهنا خير كريم إن شاء الله إن شاء الله صاحب آمين آمين صاحبي وقت رئيس كذا بيسي وما أنت انترفيو جلس هذونا ma interview man gelin adigan interview kaa qaadaya waxaan ahay kombanigan ayaan ka ahay madaxa shaqaalaha ولا waad ku guuleysatay interviewga wiigan ayaanad shaqada bilaabaysaa waan kugu soo dhaweynayaa kombanigan madaxda ka ahay horta shay baa aad baad mahadsan tahay saad ii soo dhaweysay aadna waan kuga mahadcelinaya adiga kobanigaaga waxaana rajeynayaa inaad cafido oo kobanigaaga saad igu soo dhaweysay aad baad uga mahadsan tahay waxaan rajeynayaa inaan xidhiidhkeennii soo wada cashino aan halkaa kasii wadno insha allah waad aragtaa shayma maxaad tiri igu soo celiba waxaan rajeynayaa inaan xidhiidhkeennii soo cashino mid baa horta kaa dhex baxsan adiga anigu sifigaagaan eegay in ku qiimeeyey iyo aqoontaada uman kugu siiyey shaqada ee waxayna soo dhex maray amba wax aan kugu hayo amba wax labadeena garasho ay naga dhexaysa kuguma siina aqoontaada kugu siiyey midda kale ma xasuusataa maalintaan kugu oran jiray ka fiirso wax kastana intaana samayn ka hor baa laga fiirsadaa run ahaantii waa degdegtay iminkana diyaar weehii xidhiidhkan iyo waxaad ka sheekeynayso sababta adiga xidhiidhkaaga wuxuu ahaa marka hore mid danaysiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan waa anigoo sheeme maxamed axmeda maanta dalabaadkiinii badnaayee soo dhaadhacay baa filin ka sameynay filinkaasoo la magac baxay danaysi jacayl hooy danaysigaana laga daayo hana laga daayo danaysiga haddaan dumarnaay balanteenu waa jimco walba iyo fariin cusub oo ku saabsan arrimaha bulshada waxaan iminkana u dhiibayaa muxiidiin mar walba sidii caadada ahayd
dalabaadkana waxaad kasoo gudbisaan barta commentiga insha allah. xidhintii waa waana filmis markastana wax kasta oo naga codsataan ama commentiga noogu soo qortaan ayaan nii soo gelinaa dee filinka sheer gareeya leegta commentiga sayna meelo badan u gaadhno dhammaantiin aad baan islaamay.